tan iyo bilowgii sanadkan 2015 ayaa si isdaba jooga waxaa looga hadlayay umuuraha qaxootiga dalkani Koonfur Afrika. kulan ay soo qaban qaabisay dawladda hoose ee magaalada Cape Town ee gobolka Western Cape loogana hadlayay dhibaatooyinka ku dhaca dadka ajaanibta ah ee u dhalan dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka socday baarlamaanka dalka Koonfur Afrika. xubnahan ka socday baarlamaanka dalka Koonfur Afrika ee kulanka ka soo qayb galay ayaa ujeedkoodu ahaa inay dhageystaan aragtida dadka ajaanibta ah ee ku aadan dhibaatooyinka loogu geysto gudaha dalka Koonfur Afrika, iyadoona bisha September ee dabayaaqada sanadkani lagu wado in dhibaatooyinka ay sheeganayaan dadka qaxootiga ah la horgeyn doono baarlamaanka dalka si looga soo saaro qaraar ku aadan. When a constituency or even a member of South African cabinet comes to address the local people and commenting that says foreign nationalists are taking the choice, which is totally wrong. I believe that Africa belongs to all Africans. dadkii ka hadlay goobta ayaa siyaabo isku mid ah uga hadlay dhibaatooyinka loo geysto dadka ajaanibta ah, iyadoona qaarkood ay ku eedeeyeen dadka reer Koonfur Afrika inay ajaanib u aqoonsadeen dadka madowga ah ee u dhashay qaaradda Afrika, balse ay jiraan dad u dhashay wadamada Yurub iyo Latin America kuwaasi oo dhibaatooyin ku qabin joogista dalka Koonfur Afrika. Talking about xenophobia or foreign nationals. In Europe, they talk about migration. In South Africa, we talk about foreigners. And when we talk about foreigners, we see black people. Abdiwahaab oo kamid ah dadkii ka hadlay goobta ayaa TV-ga Universal uga warbixiyay kulankaasi sidii wax loogu qaban lahaa xenophobia ama jinsiyaadka looga soo horjeedo dadka aan u dhalan wadanka South Africa. kulanka waxaa soo qayb qaabiyay City of Cape Town, sidoo kale waxaa kulanka ka soo qayb galay xubno ka socday baarlamaanka gobolka Western Cape iyo wasiir ku-xigeenka ka socda dawladda South Africa. waxaa jiro qorshe ay wado ad hoc joint committee oo ah la arurinayo fikradaha dadka foreign-ka ah ama dhibaatada la soo gudboonaata waxyaabaha sababa xenophobia qodobadaas oo dhan ay qoranaysaa. waxaan maleynayaa bisha September inay soo gabagabeeyo doonto ka bacdina baarlamaanka loo hoggay doono waxna laga qaban doono ciday Xasan Kaafi Maxamed Shire, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape Town.